Media Production. Kusoo dhawaada taariikh kooban oo aynu uga hadli doono taariikhda dalka Soomaaliya. dalka Jamhuuriyadda Soomaaliya wuxuu ku yaalaa xeebaha bariga Afrika. Soomaaliya waxay xuduud la leedahay dalalka kale ah Djibouti, Ethiopia iyo Kenya. dhinaca waqooyi waxaa ka xiga Soomaaliya, Djibouti, dhinaca barina waxaa ka xiga Kenya, dhinaca galbeedna Ethiopia. Soomaaliya waxa ay leedahay xeebta ugu dheer wadamada Afrika oo dhererkeedu lagu qiyaaso 3,333 mayl badda cas ilaa badweynta Hindiya, halkaas oo lagu tilmaamo xeebaha bariga Afrika ama Horn of Africa. dadka Soomaaliyeed waxaa lagu qiyaasaa in ay tiro ahaan yihiin inta u dhaxaysa 7 bilyan ilaa 7 bilyan iyo 500 oo kun. walow aan tiro koob sax ah aan lahayn, haddana doodu waxa ay u badan tahay tirada rasmiga ah ee dadka Soomaaliyeed 7 bilyan. dhulka Soomaaliya wuxuu fidsan yahay ilaa waqooyi galbeed kuna eg harada Hawaash ee dalka Itoobiya. galbeedna xuduudiisu waxay ku eg tahay webiga Tana River ee gudaha dalka Kenya. ballaarka dhulweynaha Soomaalidu degan tahay waxaa lagu qiyaasaa 1 bilyan 820 kun oo kiiloomitir oo isku weeran. laakiin dhulka iyo xuduudaha la aqoonsan yahay ee uu gumaystuhu sameeyey dalalkii uu gumaysan jiray waxaa nasiib darro dhulka hadda loo aqoonsan yahay Jamhuuriyadda Soomaaliya uu yahay ballaarkiisu 640 kun oo kiiloomitir oo isku weeran. luuqadda rasmiga ah ee looga hadla dalka Soomaaliya waa luuqadda afka Soomaaliga, waxaana la qoray sanaddu markii ay ahayd 1972. afafka Ingiriisiga, Talyaaniga iyo Carabiga waxay ahaayeen luuqadaha sida rasmiga ah loogu qoro dukumeentiyada ka soo baxa xafiisyada dowladda wixii ka horreeyay sanadkii 1972 bishii Oktoobar oo ku beegnay dabaaldegii xilligii ay dowladdii militariga ahayd qabsatay dalka. dadka Soomaaliyeed waa dad muslimiin ah boqolkiiba boqol, waxaase la soo wariyaa waayadan dambe in ay jiraan dad Soomaali ah haddana aaminsan caqiidooyin kale ama rumaysan caqiidada diinta Kirishtaanka. walow aanan ogeyn ama aanan garanayn haddana halka ay ka degaan Soomaalidan. daawadayaal, intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa taariikhdii koobnayd oo aynu ku fiirinaynay taariikhda dalka Soomaaliya.